dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa mar kale sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin qorshaha dowladda Itoobiya saldhig ciidamada badda ah uga dhisanaysa Somaliland balse ay ka fikiri doonto inay u ogolaato dekad ganacsi haddii laga wada hadlo. Itoobiya oo aan bad lahayn ayaa bishii Janaayo heshiis la gashay maamulka Somaliland ee waqooyiga Soomaaliya, heshiiskaas oo dhigaya in la kireeyo dhul badeed ay ka samaysato dekad iyo saldhig ciidan, taas beddelkeedna ay Somaliland u aqoonsato dal madax bannaan. dowladda Soomaaliya ayaa heshiiska ku tilmaantay mid sharci darro ah oo ku xadgudbaya madax bannaanida qarannimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Si loo qaboojiyo xiisadda Kenya oo la tashanaysa Djibouti ayaa soo jeedisay heshiis badeed sharciyeynaya sida dalalka gobolka ee aan badda lahayn ay ku heli karaan dekado loo marayo heshiis ganacsi, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Kenya. Ka hor inta aan laga wada hadlin helitaanka dekada laga heshiiyo, Itoobiya waa inay marka hore nasakhdaa heshiiskii Somaliland. waxaa sidaas wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay wasiirka dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya weligeed ma aqbali doonto saldhig ciidan, ayuu yiri Cali Balcad. Soomaaliya waxay diyaar u tahay gelitaanka heshiis ganacsi badeed si waafaqsan sharciga caalamiga ee badda. Waxa uu intaa ku daray in Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay wada hadal ka gasho hindisiyaasha haddii ay waafaqsan yihiin danaha dalka oo ah in la ilaaliyo madax bannaanida siyaasadeed iyo midnimada. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Itoobiya ayaa diiday inuu ka hadlo warka cusub ee ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya. dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu gaaray magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, halkaas oo uu kulamo kula qaatay dhigaysa dalka Kenya, iyadoo la sheegay in dowladda Kenya ay qayb ka qaadanayso xalka khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhashay heshiiskii laba geesoodka ee dhexmara Somaliland iyo Itoobiya.